daawadayaal barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa qisadii jacayl ee boqorka Bollywoodka Shah Rukh Khan iyo xaaskiisa Gauri sida ay isku barteen isku dhacyadii xiriirkooda hal dhinac miyuu ka yimid xiriirka yaase soo bandhigay jacaylka warbixin cajiba boqorka Bollywoodka Shah Rukh Khan oo magaciisa loo soo gaabiyo SRK waa jilaa si weyn loo wada jecel yahay oo dad badan ku soo jiitay filimada jacaylka uu sameeyay waana jilaa maqaam sare ka gaaray Bollywoodka haddaba Shah Rukh Khan oo magaciisa loo soo gaabiyo SRK shaashada kaliya jacayl kuma soo bandhigo waa jilaa soo maray taariikh midda ugu xamaasada badan ee jilaa Bollywoodka ka tirsan soo maro dhinaca jacaylka sida darteed qaabkan ayay ku bilaabatay qisadii jacayl ee Shah Rukh Khan iyo xaaskiisa Gauri Khan Shah Rukh Khan oo aragtida koowaad ku jeclaaday Gauri laakiin Gauri diyaar uma ahayn jacaylkiisa Shah Rukh Khan iyo Gauri waxa ay markoodii ugu horeysay ku wada kulmeen xaflad uu dhigay qof asxaabta kamid ah sanadkii 1984 wuxuuna xilligaas Shah Rukh Khan uu jiray 18 sano xafladaas Shah Rukh Khan hal gabar ayuu ka helay waana Gauri oo indhihiisa ka qaadi waayay Shah Rukh Khan isla maalintaas ayuu jacayl weyn u qaaday Gauri wuxuuna xafladda ku arkay Gauri gabadha uu ka helay oo la ciyaarayso wiil aad ayuuna u xanaaqay Shah Rukh Khan kadib xoogaa wuxuu ka codsaday Gauri in ay la ciyaarto laakiin xiiso uma qabin hadalkiisa way ka jeesatay iyadoo dhahday wiilka saaxiibkayga ayaa isugaya daqiiqadaas Shah Rukh Khan wuxuu dareemay in jacaylkiisa uu burburay sidoo kale xanuun weyn ayuu qalbiga ka dareemay laakiin xaqiiqda ayaa ahayd in wiilka saaxiibka la ahayn Gauri uu ahaa wiilka walaalkeeda sida Shah Rukh Khan uu mar u sheegay kadib Shah Rukh Khan markuu ogaaday in uu walaalkeed yahay wuu wacay wuxuuna ku dhahay mujhe bihay abna bihay samcho aniga xitaa walaalka oo kale iga soo qaad waana halka uu ka bilowday xiriirkooda Shah Rukh Khan oo ku guuleysay jacaylkiisa iyo lama filaan uu la kulmay kadib xoogaa isfaham Gauri waxa ay dareentay in jacayl ay u qaaday Shah Rukh Khan si weyn kaga heshay waxaana ay bilaabeen in ay si wada jir ah banaanka ay u wada aadaan laakiin Shah Rukh Khan qalad ayuu galay sababta oo ah ma rabin in Gauri in timaha ay furato iska badaa in ay wiilasha la hadasho kadib Gauri waxa ay go'aansatay in jacaylkan xornimo la'aanta ah hal ay u hesho haddaba waxa la gaaray dhalashada Gauri Khan oo ku dhiganaysay guriga Shah Rukh Khan isagoo hadiyado kala duwan u diyaariyay maadaama jacaylkiisa dhalashadeeda ay tahay laakiin Shah Rukh Khan ayaa la kulmay lama filaan naxdin ah maadaama Gauri Mumbai ay isaga tagtay iyadoo aan wax u sheegin jacaylkeeda iyo asxaabteeda intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa qaybtii koowaad ee barnaamijka aynu kaga hadlaynay qisadii jacayl ee Shah Rukh Khan iyo xaaskiisa Gauri hamoogaanina in aad subscribe dhahdaan Saxafi Films like and share fikirkiina waxaad noogu reebi kartaan qaybta hoose ee commentiga